السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحال الله علي صادق عبد معلم مقالة تورنتو كنو لهي معلم وحان كاهي دوكسيغا الإقلاص إسلاميك فاونديشن كدقى مادة حسابتا أما مادكا waxaa jirto inaan cawado meeshan aan dadka uga baaqo ugu sheego Soomaalida dadka Soomaalida ah waxyaabo oo scientifically la proof gareeyay oo ah inay Soomaalida meel ka wada yimaadeen waxaa jirta muddo 12 sano yar aan isnaqaan oo loo Maxamed Cali oo saaxiibanahay oo magaalada Toronto ila degan qabiil ahaana aad aan u kala fognaa qabiilkiisa qabiilkayga oo ah dadka especially isdagaalay last 25 years markii dagaalada jaahiliyada wadanka ka dhacay maalin wuxuu igu soo qaaday soo igu dhahayo Soomaalida isku meel bay ka yimaadeen anigana fikradaas weligay waan qabay marka wuxuu dhahay waxaa jirto yiri 7 qof oo kala nooca Soomaali ah DNA laga qaaday oo kala qabiil ah haddana kulligood isku DNA ay noqdeen marka anigana waan iska qaadayo dadkaas isku mid baan wada noqonay marka adigana ma ka qaadaa welcome aan dhahay anigana inaan iska qaadno adiga waan dirnay resultii oo soo noqday keegi aniga asiga waxaan noqday close iyo dadkii kaleba kulligeena isku qabiilaan wada noqon hal meel aan ka soo wada jeednaa Soomaali ahaan marka wax scientific la proof gareeyay waay in Soomaalidu north iyo south iyo east iyo central kulli isku meel ay ka yimaadeen marka waxa maanta meeshan xataa in la joogo ninkii saaxiibka ah arinta igu dhaliyay asigana warbixin fiican oo idin doona hadii Ilaahay rado arintaas ku saabsan in details asaan ku soo dhaweyn doona microphone insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Xirsi bay wuxuu ku magac dheer yahay Cali Daqle dad ba yaqaan Maxamed Cali Daqle waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed Soomaali weyn meel kasto ay ku nooshahay wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaan ka hadlaynaa Soomaalida DNA ahaan waliba dhanka aabaha inay isku meel ka yimaadeen oo isku dad yihiin badankoodu inta kalena ay yihiin dad ku dhex jira oo ku dhex dhaqmay oo gabdhahoodu dhaleen Soomaalidu waa dir iyo daabaan bay yiraahdaan oo ah dirku waa faaska inta birta daabaantuna waa inta qoriga waa aabaha iyo hooyada oo bay kala yihiin marka arintaas ayaan caawa guda galaynaa sidii uu idin sheegay Saadiq Cabdi Macalin aniga iyo asagu muddo dheer baan saaxiib ahayn annagoo saaxiiba oo walaalaha haddana ayaan waxaan wala imid arintan ah in Soomaalidu ay walaalo tahay oo anigu DNA aan iska qaaday Soomaali badanna ay iska qaaday oo aan markaa DNA-dii aabaha dhankiisa Y chromosome-ka waan idin sharxi doonaa aan noqonay V32 haplogroup ayaan noqonay kaasoo ka soo jeeda oramada marka waxaan ku hormarayaa intii DNA-da si loo fahmo DNA-dan ku hormarayaa DNA-du waa waxa Ilaahay uu dadka ka sameeyo iyo wixii naf leh oo dhan waxa ayna ku jirtaa unug walba oo kamid ah noolaha bu'diisay ku jirtaa ama isha siday bu u leedahay ama bartan u leedahay ayaa unug walbaana bu u leeyahay marka waxay ku jirtaa unug walba bu'diisay ku jirtaa DNA-da marka dadka bini aadanka waxay ka kooban tahay 46 chromosome 23 aaba ayaa laga dhaxlaa 23 hooyo ayaa laga dhaxlaa marka caawa waxaan ka hadlaynaa 23 aabaha laga dhaxlo hal chromosome oo kamid ah chromosomekaas kamidka ah waxaa la yiraahdaa Y chromosome Y chromosomekaas waxaa dhaxla wiilasha oo kaliya gabdho ma dhaxlaan aabaha ayaa wiilka siiya wiilkuna wiilkiisu siiya saasay rag u kala dhaxlaan marka aadna isuma bedelee qarniyo badan kadib mar buu waxa ku dhaca wax la yiraahdo mutation oo
marka aabbuhu uu wiilka siinayo ayaa koobigaa wax yar ka khaldamaan waxaa yaroo khaldamay ayaa la yidhahdaa mutation marka markii la fiiriyo bini aadanka oo dhan ragga adduunka oo dhan baa la fiiriyey oo ay ka mid yihiin hindida chineeska cadaanka madowga alaaska dadka deganoo iyo nooradka kuwa degan eskimowga kulligood markii la fiiriyey raggii oo dhan kulligood lababa meel bay isugu timid siday u socdeen kulligood waxay galeen africa oo weliba waxay galeen wadanka tanzania marka waa la akhriyi karaa wixii waa cilmi telefoonka waan isticmaalnaa oo ma naqaana siduu u shaqeeyo qof baa madaxa laga qalaayo oo dad cilmi leh madaxa intay ka qalaan oo maskaxdiisa wax ka jaraan oo qofkii noolaadaa wadnaha la bedelaa sidaasoo kaleeto DNA-du iyaduna waa cilmi adduunka oo dhan laga barto dad muslima iyo dadaan muslim ahaynba ay yaqaanaan waxaa laysaga qaadi karaa wadamada muslimka laysaga qaadi karaa masar suudaan bakistan ama canada iyo maraykanka iyo meeshii kaleetaba kulligood waa isku mid waa cilmi ahaan marka y chromosomkii markii la dirsay oo bini aadankii oo dhan la habeeyey oo la arkay cid walba meesha isugu imaanayso soomaalidu waxay noqotay V32 haplogroup waa Victor V32 haplogroup V32 haplogroupkaas waxa uu galaa oo uu dib ugu noqdaa oo aabbo u noqonaya waa kushitic waa V2 alif V2 alifkaas waxaa aabbo u noqonaya M78 waa masaarida hadda la joogo ragga ku nool masar boqolkiiba 37 meelaha 38 waa M78 marka waa jiridii wey waa jiridii geedka aan ka soo askunay ninkana wada dhalay annaga iyo dadyow kaleeto tiro badanna waxaa la yidhahdaa waa M35 oo aan ka soo askunay asaga laftirkiisa waxaa la yidhahdaa origin ahaan Soomaaliya dhankeedu ka yimid marka haddaba markii Soomaalida DNA-da laga qaaday boqolkiiba 77.6 numberkaasi waa number muhiima ragga Soomaalida waxay noqdeen V32 haplogroup oo faraaciintii ka soo farcamay dadka qaar baa diidi doona faraaciinta oo dhihi doona bismillaahi raxmaani raxiim war meesha xaguu nala galay laakiin awowgaa dembigii uu galay ama shirkigii uu galay ilmaha laguma cadaabayo annagu muslim baan nahay ilaahay baa muslim naga dhigay awowayaasheen hadday khaldameenna waa u ducaynaynaa ilaahay baana ka jaasaynaya dadka bini aadanka hadda muslimka ah oo dhan qurayshta xataa waabay waxay soo ahaan jireen aysan ahaan jirin muslim way soo muslimeen laakiin qabiilkoodii kama ay tagin iyo meeshii ay ka soo askumeen marka Soomaalida waxaan ka codsanayaa waa arrin aad u fudud waa $200 oo Mareykan wax ka yar in dadku dibadaha jooga ay iska qaadaan DNA si ay u ogaadaan waxa kaloo ku jira Soomaalida oo badan Carab iyo madow Afrikaan ayaa ku jira marka la fiirsho DNA-da guud oo Soomaalida guud ahaan waxa ay noqonaysaa qofka Soomaaliga intii iska qaaday markaan fiiriyay kulligood wuxuu ka kooban yahay qofku 3 qaybood buu ka kooban yahay waxyaabo kale yar yarna waa ku jiraan midabkeena iyo sidaan u egnahayna waad ka garan kartaa anigu mar baan waxaan islahaa Sri Lanka iyo Hindi iyo waxba idin ku jira oo marmarna la ku khaldaa waad aragteen laakiin waxay noqotay qofka Soomaaliga boqolkiiba 50 waa madow Afrikaan Southern Bantu baa la yiraahdaa boqolkiiba 30 iyo xoogaa waa Carab boqolkiiba 14 meelahaas waxa weeye waa faraaciinta oo la yiraahdo North African marka majority-ga Soomaalida 77.6 77.6 waxay ka soo jeedaan ninka V32ga oo oramada ka soo farcamay waxa jira boqolkiiba 10 kale oo Carab ah waliba Ciraaq u badan oo T haplogroup ama K
T ama K labadaba waa isku mid oo magacyada marba isbedela marka waa T habla group waa 10% J waa nugu jiraan carab kaleeto iyaduna yar madowga kaleetana waa nugu jiraayo madow waa nugu jiraa waad naga arkaysaa dusha korkeena marka arrinkan looma soo qaadan in cidna la isugu geeyo cidna looga tago sababtoo ah Soomaalidu waa isu aabbe iyo wiil abti iyo adeer aniga kula hadlayo haddii aan 50% haddaan ahay African Bantu haddaan ahay oo hooyooyinkii dhalay ay ahaayeen dee waa dadkaygii dadka ila nool oo Bantuga dadka carabtaana sidoo kale 33% haddaan ahay waa isla dadkaygii wey marka waa jiraan dad kaleeto ayaguna H habla group ah dad G habla group way jiraan waa laakiin 1% oo kale way waa dad aad u yar waliba markii la isku daro M35 ka caruurta u dhalay marka la isku daro waa anaga waxaana V32 waxa gadaal ugu noqonayna V2 alif M78 V68 M35 kaas hadii la isku daro inta faraaciinta ka soo farcantay iyo walaalahood marka la isku daro waa adu 84-85% way Soomaalida waa dadka isu wada eego de Soomaalidaas marka dadkan loo kala qaybshay 5 meelood waa dad isku wada mid ah oo is wada dhalay 85% ay isku meel ka soo jeedaan oo M35 ay yihiin 77.6% ay yihiin V32 arrinkan wuxuu kaloo igu dhaliyay oo ajaa'ib ila noqday ilana fiicnaaday ilana qurux badnaaday baarlamaanka Soomaalidu wuxuu u joogaa oo uu ku hawlan yahay sidoo dib u heshiintii dalka Soomaaliya uu ku hawlan yahay oo aad uga shaqeeyayo ay ku dhinteen siday ugu dhimanayeen oo ugu dadaalayeen marka anoo ku hadlay magaca Soomaalida waxaan motion u soo jeedin lahaa baarlamaanka Soomaaliya in laga qaado DNA aabaha DNA-giisa si loo ogaado loo tuso dadka inay isku wada DNA yihiin markay isu soo hor fariistaan aysan isu soo hor fariisan sidii dad kala qabiil ah ay isu soo hor fariistaan dad walaalaha inay yihiin ayaan motion kaasan soo jeedin lahaa inkastoo aan parliamentarian ahayn haddana waxay la noqon lahayd wax qurux badan oo baarlamaanku wuxuu taariikhda ka gali lahaa baal dahab ayuu ka gali lahaa waxa marka kaleeto aan dhihi lahaa arrinkani muxuu keeni karaa oo soo jiidi karaa wuxuu soo jiidi karaa waxaan aqaanaa dad badan oo Soomaaliya oo qurbaha joogay 30 sano iyo ka badan ama 20 iyo xoogaa sano oo shaqaystay oo wax yeeshay oo doonaya meel ay kulul oo ay ku nastaan carabihii iyo dhulkii ay tagi jireen waa wada gubteen oo meel ay tagi karaan ma laha Soomaalida marka waxaan ka codsan lahaa hadda gobolada kaleeto dalxiisba looma baahna waxa loo baahan yahay dadkayagi inay noo soo noqdaan oo maalgelin ay dhulka ku sameystaan taana maxaa hortaagan nabadgelyo la'aanta nabadgelyada sidee lagu soo celin karaa nabadgelyada waxa lagu soo celin karaa iyadoo meel looga soo wada jeesto la soo celiyo arrinkii magangelyada dadka la magangelin jiray in la soo celiyo iskaa wax u qabso qof walba Soomaaliya iyo magaalo uu xil iska saaro inuu ku dadaalo dadka walaalihiisa dibadaha ka imaanaya iyo nooc walbaba dadka Soomaalida inuu ku dadaalo sidii ay u dareemi lahaayeen dalkoodii iyo dadkoodii inay u soo noqdeen aqli cilmi iyo lacag inay ku soo kordhiyaan waxa meeshaas dadka ku seegay dhaqaale badan baa ku seegay oo wadamo kale lala aadayo dadka dibadda jooga iyo dadka dalka jooga waxay noqdeen sidii heeskii Mogool oo kaleeto laba aan is horin oo haddana aan is hayno intuu caashaq wada helay hayaan kala fogaado kala heeray waayo mid waliba halkiisuu la jiifaa halgaad hadda labadii midna qurbu ku baaba'ay midna dalka gudihiisii ayuu ku baahan yahay oo ku baaba'ay oo badihii bay dhalinyaradii ay ku cararayaan oo ku la'anayaan oo ku dhamaanayaan marka anigu intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa oo aad mahadsantihiin walaalayaal